kulan qada sharafa oo ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo aqoon-yahanka degmada Goldogo ka oo ay ujeedadiisu ahayd wada tashi ayaa waxa uu si habsami leh uga qabsoomay magaalada Goldogo. markii uu soo gabagaboobay kulanka ayaa waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah salaadiintii ka qayb gashay munaasabadda waxa ayna warbaahinta u cadeeyeen inay walaac ka muujinayaan qaabka loo maamulay doorashada kursiga baarlamaanka dawladda Puntland ay ku leedahay degmada Goldogo waxayna ku tilmaameen arin aan laga talagalin wadadii saxda ahaydna aan loo marin. awalba nin baa qaadan lahaa laakiin aan kolba waxaan ila xun sida loo maamulay baa ila xun sida loo maamulay waxay ballantu ahayd odayaashu inay isaga yimaadaan ka tashadaan way ahayd kursigaas ciddii ay u gartaanna ay siiyaan waxa weeye may noqon odayaashii barbar baa laga maray cid baa maamushay arrintaas cid kastoo og iyo cid kastoo maqashay iyo cid kastoo way u taallaa inaad abtiraan sisagootiyo oo haddii ilaahay leeyahay oo qaadanay wixii had yaraaw inay dhammaadeen iyo ma aqaanba waxaa lagu qabay meesha wixii la doonayay inay weli meesha joogaan baa lagu qabaayay anugu goor maaragta laga faraxashay iyo meel la geeyey ma uhuba waxaan qabaay sidii aan waxu doonayay maamulka xubin keliya kuma aanu lahayn 22 baanu lahay 22kii labadii baa laga hayay 20kiina waa goobay labadii laftigeediina haddee anugu in dadkii hore hayay in dadkana hayay ma aqaan intaas waa duco inta kale bashiir oo shaqo noo dhigay uu soo dhaweeyey weynaa iyo asagaba waa ku mahadinaynaa